gobolka Limpopo oo ka mid ah gobolada dalkani Koonfur Afrika isla markaana gobol ay si nabad ah ugu ganacsadaan Soomaalida degan guud ahaan deegaanada gobolkaasi waxaana gobolkaasi Limpopo ku yar kooxaha burcad Koonfur Afrikaanka ee caadaystay dhacantida Soomaalida gobolka Limpopo waxa ku nool Soomaali aad u fara badan kuwa uu nasiib u yeeshay inay ku ganacsadaan goobo ammaan ah walow mararka qaar ay dhacaan falal amniga lid ku ah ganacsatada Soomaaliyeed lagu waxyeeleeyo gudoomiyaha jaaliyadda gobolka Limpopo Cabdirashiid Xuuriye Khayre oo la hadlay telefishinka caalamiga Somali Cable ayaa ugu horeyn wuxuu ka warbixinayaa ammaanka ay haystaan ganacsatada Soomaaliyeed Cable waajirta su'aasha weydiisay oo ah maaragtay in meesha Soomaali badan ay ku nool yihiin Soomaalida gobolkan ku nool way badan yihiin waana maaragtay caqabadana waa jiraan caqabadaha maaragtay haystana waxa kamid ah nabadgelyada oo briyahan maaragtay awal gobolka wuxuu ahaan jiray gobolada ugu nabadda badan laakiin nabadgelyada oo briyahan xoogaan ugu yara maaragtay aan sidii hore uga baranay aan ahayn taasi waa mid kamid ah shaqaaqooyinka oo nagu soo batay oo hadda xoogaa maaragtay banaanbaxyo iyo dhibaatooyin ay ka jiraan oo haddaba maaragtay dukaamo badan u xiran yihiin oo Soomaali ay leedahay oo ilaa iyo dukaamo kontameeyo ku dhow ay naga xiran yihiin caqabadahaasi waa jiraan waana wadnaa oo maaragtay hadeer la lahayn maaragtay madaxda ugu sarreysa maaragtay ciidamada booliska iyo ammaanka kulli wasaaradaha oo dhan maaragtay adiga insha Allah waxaan rajaynaynaa inay soo gabagaboobi doonaan ama sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo dhamaan doonaan haddaba shirkaasi aan ka hadalnay oo tagnay oo aan ka cabanay maaragtay dhibaatada naga haysata waxaan ka faa'iidnay waxa la filayay gudoomiyaha jaaliyadda waa hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ka warbixiyay dhanka kale xarunta sharci bixinta ee ku taala xadka gobolkaasi oo la wadaago dalka Zimbabwe asiguna sheegay in si diiran dadka aan u dhalan dalkani Koonfur Afrika Soomaaliduna ay ka mid tahay ay u soo dhaweeyaan shaqaale loo carbiyay soo dhaweynta dadka sharci doonka ah su'aasha kale oo ah weydiisay maaragtay sharciga laga qaata meeshan waa jirtaa waxaan isku daynay inaan la kulanno maaragtay hataa ninka meesha ugu sarreeya waana la kulannay waan wada hadalnay waxyaabo badan ayayna maaragtay nagala hadleen oon iska fahamnay sharciga waa la bixiyaa waxaa jirtay awal inay sharciyo qaadan jirin dadka oo maaragtay ay dhibaato badan la kulmi jireen ama 6 bilood 6 kale ilaa maaragtay qofka uu 3 sano ama uu iska gaaro oo wax maaragtay la siinin sharci weyn aan la siinin laakiin dhibaato ayuu noo sheegay ninka meesha ugu sarreeya oo ah wuxuu leeyahay dhibaatada haysata meesha Soomaalida haysata waxa kamid ah oo hadda aan xal u raadinayno oo aan ka wada hadalnay waxa kamid ah in maaragtay dadka meeshan iska dhiibayaan go'aankoodii laga gaarin ee macnaha waraaqdoodii go'aan laga gaarin ay baxaanay haddana waxay iska dhiibayaan magaalo kale kaga warbixiyay horumarka dhanka ganacsiga ay Soomaalidu ka sameysay gobolka Limpopo asigoona tilmaamay in goobaha ganacsiga Soomaalida ay hatiyeen iminka qoomiyadda Itoobiya horumarka laga sameeyay horumarka ganacsiga laga sameeyay waa jira dib u dhacna waa jira horumar waa jira oo waxaan dhihi karaa Soomaalida ganacsiga waxay ku bilowday maaragtay warata ay ku bilowday haddana dukaamo iyo baabuur iyo taraagiyo iyo maaragtay iyo maqaaxida iyo hoteella iyo ayaa la marayaa iyo maaragtay in wax ka sii waaweyn la sameeyo ayaa la marayaa horumarkaas waa jira dib u dhacna waa jira oo maaragtay sanad ama 2 sano ka hor ganacsiga aan lahayn annaga oo Soomaalida aan ku xisaabtamaynay Limpopo kale 1000 dukaana ku taala ama 900 dukaana ku taala aan dhahaynay maanta waxay marayaan 400 ama 300 ama 150 200 dukaan ay marayaan saas darteed marka waxaan leenahay dib u dhaca noocaas waa jira Soomaalidana aadan maaragtay aan ugu wacyigelinayaa inay arrinkaas ay joojiyaan oo hantidooda Abdullaahi Faarax Nuur Yariisow telefishinka caalamiga Somali Cable gobolka Limpopo ee dalkani Koonfur Afrika.